السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني وبلال ميديا وحاجي السلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارته هو ذا الصوتين أنا بهذا بلال ميديا حمات النطيبة برنامجك ولكن مولي ولكن علي وعمرنا إن ما أنت كورس إنه الحالة دي هري فنك سدو أولها يا ما أنت سدو برنامجك إن ما أنت وحكوسة بسرعة هاي فرقين تفنك ما أنت مولي كشودو اليوم مع سنة بلال ميديا. نواد محسنتين كنا هاي بلال ميديا أجمل نوع محسنتين نكمل علينا سيد أمة ولسان مبارك شعب الصومالي حول سوق لسان وحبا في عني فريمة برسني سوق لسان والدلال أجمل محسنتين ما شاء الله. علي هل يلا أولا سودو ولا horta aad baa u mahadsantiin kooxda Bulaal iyo maaragtay dadka maskaxda leh iyo ka dambeeya iyo dhammaan dadka hirgeliya runtii arrimaha iyo maaragtay madadaalada oo runtii dadka bulshada lagu wacyiyo horta aad baan iga mahadnaqayaa. Bulaal waxaan leeyahay horu socdo waana ku mahadsantiin maanta inaan qayb ka noqdo in kulan balaaran aan runtii ila yeesho weliba Bulaal Media aad u mahadsantiin. aad baad u mahadsantihiin labadayda garabba. Mawlid haddii aan kusoo laabto su-aashaada waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo su-aal yar oo ku saabsan fanka. Sidaad ogtahay fanka wixii dowladda ku horreeyey fanka qiimu lahaa macnuu lahaa wejigu lahaa maantana kulley dee kaagama sheekaynayo oo waad la socotaa ama waad ka waraysaa yaa haddi kaa uu maraya fankii maanta maxaa farqiga u dhexeeya isleedahay fankii hore iyo fanka maanta keenta aaminsan tahay inuu fiican yahay niga horta marka fankii hore iyo fanka hadda jira yani farqad weyn oo dhaxaysa wax weyn oo dhaxeeya waxayna tahay ummadii hore waqtigii burburkii Soomaaliya ka hor dadkii Soomaaliyeed jiray yani tobankii ruuxi meel fadhiya maantana kulley dee kaagama sheekaynayo oo waad la socotaa ama waad ka waraysaa yaa haddi kaa uu maraya fankii maanta maxaa farqiga u dhexeeya isleedahay fankii hore iyo fanka maanta keenta aaminsan tahay inuu fiican yahay niga horta marka fankii hore iyo fanka hadda jira yani farqad weyn oo dhaxaysa wax weyn oo dhaxeeya waxayna tahay ummadii hore waqtigii burburkii Soomaaliya ka hor dadkii Soomaaliyeed jiray yani tobankii ruuxi meel fadhiya yani sideed ka mid يعني ضد السؤال اللي هاي السؤال كل شيء هو كعب هذا كل كبير هاي ضد كمان شوفنا بقول كيلا بقول كروح المال ما يسوى هالبرقة المقصود يكره كازما هو الصحين ما تعزله يعني حكمتي يعني ماشي حكمتي بعدين ما نسمع ما كتاسة وصار مسألة حكمتي هذا حاجة سنسير إن إسلا هذا الكعدي أقوى إسلا هذا الكعداد أتوجه سهل إلى سؤال كاويديرو maadaama oo dhaxday 10 ruux dadkii hore ka hadlay 10 ruux baa 8 baa laga yaabaa inay wax ku cabiraan macnaha jirtada suugaan maanta dadkii jooga boqolkiiba hal ruux sababta ama xagee ka imaatay ma aqoon yariba ma macnaha maskax la'aan ay jirto dadkii hore iyo dadka u dhaxayso farqigu muxuu yahay dadkii hore 10 ruux 8 aad uga siisay inay suugaan ku cabiraan wax dadka maanta boqolkiiba hal ruux aad uga soo waxay tahay iyo horta waqtiga labada waqti loo joogo way kala duwanaan bayada lagu kala nool yahay waa kala duwan waqtigii hore dadku muxuu Soomaaligiisa yani afkiisa hooyo ruux walba qiimeyn jiray yani ruux walba Soomaaliga maqli jiray erayo maaragtay naxwa iyo maqli jiray erayada fiican af Soomaaliga maqli jiray yani marka ninkii abwaanka ahaa weligiiba Soomaali waxaan Soomaali maqliyay wax kale ma baadin yani maanta ku joogana waxa laga yaabaa dadka qurbaha iska wada joogan yani afkii Soomaaliga way ka tageen afkaatooda dhan waxa laga yaabaa inay ku gudbisanayaan luqad kale lahjadeen ayagu dhaleen ku gudbinayaan يعني الصومالي هان حاجة أساسية يا أستاذ وصلت وضع ركتي فنانين توقعنا سهل بجسنا يعني هذا الفنانين ما تيجي كلام وضع ده كان سكشة وش شكل يعني ده شكل يقول يعني ما وقت هذا اللي اسمه سكر أمريكا كده نقول حسنا سمعت
يعني dadkii qumanaa maaragtay khadradda aragay yani fanaaniinta tubaab dadkii hore dadkii haadii dad maanta ayaa sareeya asleedo kaalinta sare waqtiga joogo kaga jiro maanta dad kuwaas xataa hadda intii warkooda ay aakhira jooga qabriga jooga ay ku maqli lahaayeen qaarkood ay maqlaayeen dadka hadda haadanaysa yani waxaan malayn ba waxaan malayn wax badan oo safariin badan ay soo dir lahaayeen sabab hadda aan maqlay maalmaha hadda waxa kacsan oo dadku dhageystaan waa gabar oo Soomaaliya joogto furtumal balaarka xaga qurbaha waxa uu kacsan nin oo faladegal muslim faladegal labadaba waa taageersan labadaba waa ka salaamay fanaaniinta waqtigan waxayna waqtigooda ayaga hadda ugu shidan marka hadda jawaabtaada waxaan u fahnay in ay tahay macnaha dadkii hore waxay ahaayeen dad wadankoodii oo nabada joogo luqadoodii iyo khayraadkoodii dhex joogo oo macnaha af Soomaaliga burti ilaahay haybad u siiyay maskaxdooda ka curin hadda waxa fiiri هذا سهل إنه يستوى حتى لو أصلا من قرمه كحسين يعني عدد كلام هذا ماشي هتتابع يعني عدد جرى على السوق على عدد يوتيوب في السوق على فرقة شعل وعزك أحسن لو واحد كمان واحد أنا أعرف شو أمريكا كمان أسوأ كويس يصير هذا لو ده كحسن متى كان إذا تد سيجي أنت يعني ضد كده ما رتي يقولك ما هيستاهل أروح كنتروليش أول مرة فنكر هيستاهل قلب على جلوس الرجال ضد كفانا هاين دولة بس هو سعر كتير يعني أبوانين تشيل sida dadka hore awaaninta waxa jira jawooyin yar oo ka hooseeya dad yar oo ka hooseeya waxa jira aftahan iyo hal abaalki maxaa hal abuur oo waxyaalo yar oo adigu hal ruux hal abuur wad garanaysaa waa wax yar meel bay jooso bay dadka maar iska afray dad afray ay jirjireen afridan waxa bariga dadka looga disin jiray inuu walba qoro ciil baa gudbiis ku aamusana dadkaas afrida hada laakiin dadka oo dhan baa wada abwaana dadka oo dhan baa wada sheekha dadka oo dhan baa wada yafsooda Soomaaliya ka badanaya ruuxa maanta Soomaaliya u qortana hada waxa laga yaab in hada aan hebel ma garanayo wax ku arkay YouTube ma waxaan page kiisa fiiriyay xulaha fanaan heesta ma fanaan u sameeyay ma jirto yani sababta uu ku sheegay dadkii oo markuu hees sameeyay bale Soomaaliga ma rabnaa Soomaaliga ma rabnaa yani suuqa loo soo daro suuq marka suuqii dhanaabi heesi isku joojiyo heesta ma sameeyay marka wallahi waa dad maartay adduunka maartay aad baa uga dambana fanka Soomaalidu masiiriisa ma balaha marxaad mara fanka Soomaalidu yani ma laha wax sida fanka dunida hada dii kan laga hadlo hadii laga hadlo Tanzania Afrika da ku soo aado adduunka gudaha dadka ruuxa fanaanku yani qaado fanka sababta ka helo يعني فنك الصومال أد بقول من فنكاس يعني أد بحاجة سوى ليتا يعني ما له أد روح الشو قبنا وحير النفل المكين وحنا أسمع ناس كذا دقائق يعني واحد ساس وروح سكت بابا هي حاجة نروح سكان لكن هو يرد هذا اللي كمان عندي العدد كمان الفنانين تا وحاليا وهذا ما تذكر ما فنك عيار هيو إلهي كبقى يعني فنك ماركتي بالحشمية وحنا تقول سنة تجيو ده فنك على وقت بينا شباب حمر تشيني سلام عليكم ما شاء الله كاسبها مولد هدي أنا كسب الضوء أقول ما بدك علي بعد ما تكتب برنامج كان فابتداء ده عم فرقين فنك ما أنت كل ما قالنا خبرة دارنا ده فنك لكن هو الدنيا محاد معناها إسلام هاي فنك وكل دوي فنك هراء يفنك ما أنت بتشوفه أديكوا عبرنا يو معناها وقت جايو حالة كل هذا اللي تشوفه تاني أنت كوجه فنك وحسكنا لكن محل كوجه وحيد هاي كنت مركز السفر اليوم قدامها كله وأفريقيا كله سيدا ما عارفين تري مولد وكله وانشي وحاجة فنكا ذلك قرش بدك اسمها ويرم نتخوير العفو بدك موسمها لكن أنا سمعنا كلام هاي فنكا غفوري بوسكيسا حتى أنا هذا صوت شيء مدرسة مغالب مسكيس وحنا كويس شيء ماله مركا وحافي عن رنتي دولة هذا مش كم جدو دولة دولة من وجه دي مركا هذه الدولة في عالم هاي وحاجة وسيلة قابل سن أرمى موسيقى هي السودان ترى مركا واحد كوبريت لاجنا وقفك فنك وليه حقوق وليه وقد بكر أصلا حديثا يحق ومارك وقد بكر مركا قبل ما قفك فنك كتير مركا أركيسا إنه فنك كتلاب سنة وقد كتلاب سنة مركا فرنيته هوري
fankooda wuxuu ahaan jiray arrin bulshada khusayso mase wax walba fankooda dareen buu xambaarsanaa oo message ama hadal bay kala wadeen fanka laakiin hadda ujeedadu lahaa markay heesta ama fanka ama wax waliba ku saabsan fanka markay noqoto wax ujeedo wey laakiin hadda la joogo ujeedo ma laha fanka يا هذا كرا في صومالي ير ومارتي أنا هذا أبون مي يقرن ما يفهم كمان لا جمر عشان كورن هذه هي سكوب هذا وحين كده كنت هيصير ساعات في فردك النقطة والله سكين دواد ومسكين دواد وسكين هذا علم هذا كده علم أنت بون ده زي رمضي كسجدة مركا أنا رمضي وحدينا مارتي فانك وحدينا دكتور كوتشر هذا إني رمضي أي استاجران فانك لوير حتى لوير أو كوبريت لوير أو مارتي دولة أنا رمضي سوفر اللي شتو أي مارتي غير وين كغلطو سي مارتي فانك الصومالي ويجينا يعني أنت كان بقولك يعني دولة هذا الصومالي يعني ما هو دولة يعني فانكي كنت رشوا هذا فرنسا وكشوا يعني ذاك صالح شو بس أولاد كلام فلان إن بقول كي بس جاش أنت كان تسكيس واحد راهم كويسية يعني تذكر إذا الشكل وضمك إذا الشكل هيصير وضمك لهم الصومالي هي بيتشوغان يعني ما كانت سؤال ما ما حليتها طبعا ما حاول ما رمضي أنتوا قولوا صلى الله ما لكم بحل ليه بس ما حرم هذا حرم هذا دولة الصومالية نقول هذا إن حرمك الله يا صومالي سويتيس مركا كل أنا فريم وحن دري أدري إنه فن كوجه الصومالية وحن ليه هاي فنك الصومالية حد هلايرو جرال هلايرو هذا نورد فنك وكلها أما غيرت وكلها الصومالية أما حلق وفدي كان قرآن وكل هذا حلق أما موجودة أما ولجدة أما معرفة الميسج وحمارسين هاي سودان الصومالية ويجينا هذا بدل يرفع الفنك وده في عين الحمين حاجة أسئلة السودان سرار وكله حرير وكله بيك وكله معنا قولنا إنه كين جامع وكله فنانين بدل وهذا في عن عوالة يسي عوالة وكله ضد بدل باكرة مركب فنانين تاسو كله عليه يمكن كذا أجاك halkaasi waxaa inoo soo idmaaday ama inoo soo xirmay barnaamijkii falanqaynta fanka maanta waa team bulaale oo marka leedin leh subscribe like comment share iyo gabdheelka waa naga codsi meesha yara koorta lagu dhageysto ku xidhnaaw bulaale media